mudanayaal sidii qorsheenu ahaa waxaa inoo jooga oo marti inoogu ah fadhiga maanta wasaaradda hawlaha guud, hay-adda waddooyinka Puntland iyo guddigii waddada Ceel Daahir Xarigaabo. mudane wasiir ku-xigeen agaasimaha guud ee wasaaradda iyo guddoomiye ku-xigeenka hay-adda waddooyinka, mudanayaal sharafta badan guddiga oo uu hogaaminayo guddoomiyihii guddiga Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf, wasiirka wasaaradda hawlaha guud wasiir Axmed Bashiir, iyo guddoomiye ku-xigeenka hay-adda waddooyinka Cabdirasaaq Xayr. inta waa joogaan waa idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaana idin leeyahay soo dhawaada. mudanayaal, waxaynu ugu yeedhnay wasaaradda iyo hay-adda iyo guddigaba inaynu wax ka ogaano xaaladda waddada Ceel Daahir Xarigaabo oo waajanteenu ahaa, iyo xaaladda guud ee waddooyinka Puntland oo golahu isla qaatay in lagu labo. waxaan doonayaa inaan ku soo dhawaayo marka koowaad wasiirka wasaaradda hawlaha guud si uu arrintaas uga warbixiyo waxa ay kala socdaan ka wasaarad ahaan. kadibna waxaan ku soo dhaweyn doonaa hay-adda waddooyinka, kadibna waxaan ku wareejin doonaa guddiga waddada Ceel Daahir Xarigaabo. mudane wasiir ku soo dhawo. waddada Ceel Daahir, baada saxaafadda dhammaantiin waa salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan waxaan uga mahad celinayaa golaha baarlamaanka ama golaha shacabka u yeeriddaanay maanta inoogu yeereen inay wax ka ogaadaan xaaladda guud ee waddooyinka iyo dhammaan wasaaradda hawlaha guud. markii aan wax yar ka taataabto xaaladaha guud ee wasaaradda hawlaha guud ay ka og tahay waddooyinka iyo dhulka Puntland. run ahaantii waxaa ka socda Puntland oo dhan xaalad emergency ah oo qaybahood sida waddooyinka jajabay, waddooyinka roobku waxyeeleeyeen, kuwii dame oo hadda roobka dayrtu waxyeeleeyeen, kuwo la dhisayo oo shaqadoodu socoto, kuwo kale oo aynu rajaynayno waqti dhow inay iyagana shaqadooda qabsoonto. warbixinteeda guud waxaan ku soo qaadanaynaa xaaladda guud ee dalka ka jirta waddooyinka. gaar ahaan waxaan rabaa inaan u kala qaado siday kale yihiin. wasaaradda hawlaha guud muddadii 8 bilood ahayd aanu xilka haynay ka wasaarad ahaan waxaanu wada shaqayn fiican lahayn guddiga, waxaanu wada shaqayn fiican lahayn hay-adda waddooyinka Puntland. dhammaantood waxaan ka wada shaqaynaynay si dalkan iyo dadkanba loo wada horumariyo. wasaaraddu waxay gacanta ku haysaa shaqooyin badan oo socda oo ay ugu horeyso waddada roobkii gugu waxyeelay oo shirkadda CEC dhowaantan la siiyey si ay dayactir ugu samayso. sidoo kale waxay wadda shaqooyin kale oo barnaamijka loo yaqaano GBLG-ga oo 11 waddo ah iyo mashruuc kale oo gooni ka ah oo isagana ay bixinaysa hay-adda Tismalas laga dhisayo 2 kiiloomitir oo galdogob ah. sidoo kale waxaa iyaduna socota waddadii wadaagsin garaacad galdogob, waddada Ceel Daahir naftigooda xog badan oo aan guddigu nooga soo gudbiyeen baa jira xilliyadaana wareysanaynay. xaaladda waddanku ku sugan yahay marka waddadan Garowe Gaalkacyo runtii waxaa jiray barnaamij hakad galay oo mashruucii GIZ ay waday. waxaan rajaynaynaa xilli dhow mashruucaasu inuu dib u furmo, dib u bilaamo ugu dambeyn bisha February inuu bisha labaad ee sanadka cusub. waxaan rajaynaynaa barnaamijkaas inuu toos u bilaamo. isla mashruucaas waxaa jiri doona mashruuc kale oo ay naga caawin doonto African Development Bank oo isla waddadaas Garowe Gaalkacyo ah. isagana waxaan rajaynaynaa isla sanadka cusub inuu dhaqangalkiisii uu bilowdo. xaaladaha kale oo waddooyin waxaa jira u qareemid loogu maqan yahay oo wasaaraddu ay gudbisay oo national banaanka ku dartay
waxaa ka mid ah waddada Kalabayr Caluula, waxaa ka mid ah waddada Ayl Dangaroyo. dhammaan waddooyinkaas waxay ku jiraan qorshayaasha mustaqbalka loo raadinayo fan in ay loo helo. waxaa ka mid ah waddooyinka Lafagorayo oo hadda iyada burburkii roobku waxyeeleeyey 5 kiiloomitir oo ka mid ah dayactir baa lagu sameeyey oo waxa fankeeda bixinaysay hay'adda Tisplaus. USAID baa laga soo qaaday 5 kiiloomitir runtii waxba roobku wax ma yeelayn oo si fiican bay hadda u tagan tahay, laakiin dhibtu waxay ka jirtaa waddadii oo ku taalla dhul buuro ah, waxay intii kala badnayd kala xiran tahay. maalmahan habeen hore waxaan dirnay guddi 2 qaybood isugu jira, guddi wacyigelin oo guddiga uu hogaaminayo gudoomiyihii hore gobolka Mudug Mr. Tigay, iyo guddi ka kooban technical ee hay'adda waddooyinka Puntland oo aan ugu talagalnay inay soo sameeyaan qiimeyn dhab ah xaaladda halkaa ka jirta. waxaynu wada ogsoonnahay sidoo kale waddada Galgala oo ah meel halbowlo oo ah Puntland, runtiina ah meelaha ay dhibta badan ciidamadeena iyo ay ka soo gaarto. waddadaas waxaa laga wadaa iyada laga bilaabayaa shaqo. markii hore waa la bilaabay, xoogaa hakad baa ku yimi 2 kiiloomitir oo ka mid ah baa la xaaqay. waxaan rajaynaynaa iyadana inay xilli dhow waddadaas dib loo furo. waddada Ceel Daahir iyo Boosaaso iyagoo wada og meelaha roobku wax ka yeeleeyay baa jira. guud ahaan waddooyinka Puntland waa sidaas. waxaa jira oo kale waddadan la yiraahdo Garacad Galdogob oo aan rajaynayno inaan ku darno sanadka national plan-ka. awal si isku tashiya baa lagu dhisayay oo bulshadu ay ku halgelisay. gaar ahaan waddadaas waxay u tahay muhiim maadaama la dhisayo dekadii Garacad isku xirka Tuurdibi meesha loo yaqaano Galdogob ku taal ee ganacsiga. waxaan rajaynaynaa marka guud ahaan xaaladaha waddooyinku inay noocaa yihiin. waxaa jira wada shaqayn wasaaraddu xoogaa ay aad iyo aad xilliga aan joognay wax badan oo waddanka waxaa jira isu dhexyaaca xagga maamulka iyo administrationka ah oo shaqooyinkii wasaaradda qayb ka mid ay maqan yihiin. example waddanka markii la fiiriyo xaggan dhismaha infrastructure-ka oo dhan waxaa qaabilsan wasaaradda. shuruuciyadaas oo dhan waxaan rajaynaynaa inaanu dib ugu soo celinno wasaaradda gudaheeda oo ay inta badan waddanku iska googo'a bareefad iyo siyaabo kale loo kala kaxaystay. inahaas baan kusoo koobaya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi. wasiirku waa mahadsan yahay. wixii su'aalaad waa dib baa uga dhiganaynaa, laakiin waxaan rabaa inaan warbixinada dhan kula dhageysano. waxaan iminka lagu soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka hay'adda waddooyinka Puntland Cabdisaaqe. soo dhawaabsan. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوميها قلها برلمانكا وحجينا ديسا ودنياشا قلها وكيلada مسؤولينta wasaaradda hawlaha guud guddiga waddada Ceel Daahir iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hay'adda waddooyinka Puntland. dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa sharaf iyo mansab anoo ku hadlaya magaca hay'adda waddooyinka Puntland inaan maanta idin hor nimaano si aan warbixin idinka siino xaaladda waddooyinka Puntland. wax badan oo aan sheegi lahaa waxaa halkan ka sheegay wasiirka wasaaradda hawlaha guud oo ku saabsan xaaladda waddooyinka. waxaan rajaynayaa idinku laftigoon inaad ka warqabtaan aad la socotaan, balse waxaan rabaa inaan wax yar taabto shaqooyin badan oo hay'adda horyaalla xaaladda ay ku sugan tahay. waxaana haddii aad noo ogolaataan idinku gudbin doonaa qaab presentation ah. mudana guddoomiye mudanayaal, hay'adda BHA oo ka mid ah hay'adaha madaxa bannaan ee dowladda una igman dayactirka waddooyinka Puntland waxaa horyaalla shaqooyin baaxad leh oo ay ugu waaweyn yihiin burburka soo gaaray waddooyinka gaar ahaan waddada Garowe iyo Boosaaso, waddada Garowe Laascaanood iyo sidoo kale burburka hore uga muuqday waddada Garowe Gaalkacyo. ayuuna ugu dambeysay go'doonka hadda ka jira gobolka Gaardafo gaar ahaan
waddadii isku xiri jirtay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Gaardafo. mudana guddoomiye mudanayaal hay'adda waddooyinka Puntland gobolkaas waxay u dirtay tiim injineero ah oo warbixin ka soo dhiibaya xaaladda waddadaas sida wax looga qaban lahaa iyo dhibka gaaray halkaas inta uu leeyahay. mudana guddoomiye hay'addu waxay sidaas si la mid ah horay warbixin uga soo gudbisay dhibka ka jira waddada Garowe iyo Boosaaso. mudana guddoomiye mudanayaal sida aad ka warqabtaan hay'adda waddooyinka Puntland oo sharci ahaan ku dhisan sharciga No Number 18 waxay dhaqaale ahaan ku tiirsan tahay dhowr dakhli oo dakhliga koowaad uu yahay qadar lacageed oo la saaro shidaalka, gaaska, walyooyinka dibadda laga keeno iyo agabka baabuurta. sidaas si la mid ah waxay dhaqaale ka heshaa hay'addu deeqaha caalamiga oo aan ahayn kuwa joogto ah iyo xafiiska ciidbaarka. dhammaan dakhligaasi waxaa ururin jiray xafiis madax bannaan. xafiiskaasi waxaa la xiray sanadkii 2013 dakhligana waxaa u qabatay iminka ilaa xilliga laga soo bilaabo wasaaradda maaliyadda. wixii waqtigaas ka dambeeyay hay'adda si joogto ah uma heli jirin dakhligeedii waana tan keentay in waxyaabo badan oo ay u igmaday oo ahayd inay qabato maanta burbur xooggan ay ka muuqdaan. sidaas si la mid ah waxaan dareemaynaa in shaqooyin badan oo hay'adda u xilsaarneyd sharcigeedana ku qoran in dad kaleeto ay hadda faraha kula jiraan ama ay hayaan. mudana guddoomiye mudanayaal marwooyin hay'addu muddooyinkii dambe waxay dadaal ku bixinaysay sidii dakhligaasi ay u heli lahayd. waxay dhowr jeer kala hadashay wasaaradda maaliyadda, baarlamaanka laftigiisa warbixino ayay u soo gudbisay dadaalkaasi, laakiin weli sidii la rabay ma noqon. madaxweynaha dowladda Puntland waxa uu ballan qaaday in hay'adda uu sideeda ku soo celin doono. waxa uu dhowaan bishii Oktoobar u soo magacaabay guddoomiye cusub muddo 3 bilood aan si ku sumaa u hayay. guddoomiyihii fadhiga maanta uu ka coddaatay wuxuuna u baxay safar dibadda ah. mudana guddoomiye mudanayaal wixii warbixin oo kale oo ku saabsan xaaladda waddooyinka, caqabadaha taagan iyo talooyinka aan rabno inaan idiin soo jeedino waxaan jeclaan lahaa haddaan noo ogolaataan inaan presentation idinku samayno. waxaan kaloo codsan lahayn in idinkoo baarlamaankii ah hay'addan iyo siday u shaqayn lahayd iyo shaqooyinkooda u qabsan lahaydeen inaad gacan naga siisaan wixii su'aalaha iyo wixii comments soo qabtaanna waxaan diyaar u nahay inaan idinka jawaabno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. mahad celinta Allah iyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam kadib waxaan salaamayaa guddoomiyaha baarlamaanka Puntland, guddoomiyaha ku-xigeenka, xubnaha kale ee baarlamaanka oo goobjoogga ah. sidoo kale waxaan salaamayaa madaxda wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda, wasiir ku-xigeenka iyo madaxda kale. waxaan kaloo salaamayaa madaxda hay'adda dhismaha waddooyinka Puntland ee BHA iyaguna goobjoogga ah. waxaan kaloo salaamayaa guddiga waddada Ceeldaahir oo iyaguna goobjoogga ah iyo kasoo qaybgalayaalka kale meediyada. dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa haddaan nahay guddiga waddada Ceeldaahir Ceergaabo fursaddan guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha kaloo baarlamaanka Puntland ayna siiyeen oo guddiga ay siiyeen si ay ugu soo bandhigaan guddigu waxa gacanta ay ku hayaan. aad iyo aad ayaan fursaddaas uga mahad celinaynaa. mudane guddoomiye halkan waxaa fadhiya guddigii waddada Ceeldaahir oo 3 qaybood ka kooban: boardka guud ee waddada ama guddiga waddada, farsamo yaqaanadii waddada gacanta ku hayay ama injineeradii, sidoo kale madaxdii maamulka goobta ayaa iyaguna fadhiya. xagga waxaa ugu xiga Sheekh Fuaad Maxamuud Xaaji Nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga. sidoo kale waxaa fadhiya Cali Maxamuud Xasan oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta waddada oo shaqada waddada iyo socodkeeda guddi ahaan gacanta ku haya.
waxaa fadhiya cabdikaafi axmed siciid oo ka ah xubin guddiga dhaqaale ururinta oo guddiga ka mid ah. waxaa ku xiga injineer aadan yuusuf barre oo ah injineerka guud ahaan madaxda ka ah socodsiinta ama dhismaha waddada ceeldaahir ceergaabo. waxaa ku xiga injineer cali nuur maxamuud oo isaguna injineerka ku-xigeenkiisa ah oo shaqada ay wada wadaan. waxaa fadhiya oo ku xiga maxamed mahad ciise oo ah maamulaha goobta shaqada waddada shaqada shaqaalaha shaqaynaya iyo farsamada. waxaa ku xiga maxamed caydiid jaamac oo isaguna ka mid ah xubnaha guddiga. waxaa ku xiga cabdixaashi cali salaad oo madax u ah guddiga dhaqaale ururinta waddada oo dhaqaalaha isagu mas-uul ka ah. waxaa ku xiga madaxa xisaabaadka waddada axmed guure. intaas kadib guddoomiye guddigan waddada ceeldaahir waxa uu ku yimid guddigaani wuxuu ahaa guddigii ka qayb qaatay dhismaha markii ay go-een buundooyinkii ama waddada meela ay ka go-een wakhtigii 2013 roobkii faraha badnaa. waa guddigii ka qayb qaatay dhismaha iyo dhaqaale ururinta buundadii midigar iyo meelihii kale oo go-ay iyagoo guddigu kaashanaya oo la shaqaynaya wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka iyo hay-adda dhismaha waddooyinka oo toos ay uga wada shaqaynayeen. hawshaas markii ay dhammaatay oo lacag ilaa 900 kun ku dhow guddigu ay soo ururiyeen dibad iyo gudaba ayaa waxaa timid talada waddadan in la dhiso. guddigan ganacsatada ah weliba iyo culimmada ka kooban ayaa soo jeediyay taladaa keenay in laga maarmaan ay tahay maadaama tan lagu guulaystay tanna in lagu guulaysan karo. dabeedna madaxweynihii markaas puntland madaxda ka ahaa doctor brofesor cabdiweli maxamed cali gaas soo jeedinta ayuu aqbalay. guddigaana madaxweynaha ayaa digreeto madaxweyne ku magacaabay. sidaas ayaana guddigu dhaqaale ururintii iyo shaqada uu ku bilaabay. mudane guddoomiye warbixin ayaa guddigu soo gudbinaya haddii laha idmo 2 qaybood u qaybsan. qaybta hore oo ah farsamada technicalka waddadu dhismaheeda iyo wixii ku saabsan injineerada ayaa ka warbixinaya. sidoo kale guddigu wuxuu soo gudbinayaa xisaabaadkii soo galay waddada ama guddiga waddadu gacanta ay ku qabteen ilaa ay aantii shaqadu ay bilaabatay ilaa iyo maanta wixii soo galay iyo wixii baxay wax walba wixii ay ku baxeen. sidoo kale guddoomiye waxaan codsanaynaa in maadaama warbixin dhammaystiran guddigu uu soo gudbinayo in nala siiyo waqti ku filan. sidoo kale waxaan codsanaynaa in awalba guddigu wuxuu damacsanaa runtii shir jaraa'id inuu qabto oo bulshada reer puntland iyo dowladdaba uu gudbinayo guddigu waxay gacanta ku hayaan. waxaan codsanaynaa in warbaahinta lala wadaago haddii laha idmo oo warbixinta guddigu uu soo gudbiyo shacabkan in loo gudbiyo haddii laha idmo si xog dhammaystiran loo wada helo. markii warbixinta guddigu uu soo jeediyo waxaa guddigu diyaar u yahay dhammaan wixii su-aalaha la soo jeediyo guddigu inuu ka jawaabo haddii laha idmo ayaa guddigu u diyaar garoobayaa. ugu dambayn guddoomiye markii su-aaluhu ay dhammaadaan waxaa guddigu codsanayaa hadal kooban in dib loogu soo celiyo oo wixii codsi ah oo markaas taagan si guddigu markii la war helay kadib si guddigu guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka uu ugu soo gudbiyo. wabilaahi towfiiq. sala allahu calaa maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin. waraxmatullaahi wabarakaatu. marka horeeto waxaan jeclahay inaan kiilisu sheego aniga iyo injineerka aan wada hogaaminayno dariiqa. aniga waxaa la yidhaahaa aadan yuusuf barre 40 sannadood ku dhowaad yaan ka shaqaynayay civil engineering works oo Saudi Arabia, Malaysia iyo UAE. 2016 baan aniga oo ziyaaro ku imi Boosaaso waxaan la kulmay guddiga qaar ka mid ah
dabeedna waxay yidhaaheen yahow khibraddaada ayaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano nala shaqayn run ahaantii aad baan maxaan kuu sheegay u soo dhoweeyey guddigii waan ka oggolaaday inaan la shaqeeyo leanna waxa weeye waarimay sidee war ha kaa har marka sidaas baan anigu mashruucan ku soo galay 2016 bishii February aan u imi wax badan baan maxaan kuu sheegay la turxaamiyey haddaan taa ka gudbo brief yar oo historyga waddooyinka Soomaaliya waxa weeye waddooyin badan baa loo sameeyey laakiin inta waddo oo la sameeyey aan ka ahayn waddadan Ceel Daahir Ceel Gaabo waxay ahaayeen waddooyin lagu sameeyey kaalmo bannaanka ah yani haddaad soo qaadato waddada Afgooye Baydhabo waddada Afgooye Kismaayo waddada meesha la yiraahdo Xamar Feerfeer waddada Beledweyne Burco waddada meesha la yiraahdo Garoowe Boosaaso kulligood waxa weeye shirkado ajnabi ah iyo dad ajnabi ah iyo injineero ajnabi ah ayaa wada dhisay laakiin waddada Ceel Daahir Ceel Gaabo xagga financialkana Soomaali isxilqaantay yaa dhisaysa oo gacanta ku haysa technicalkana sidoo kale Soomaali waa gacanta ku haysa marka dariiqani waa dariiq unique ah oo fariidu min noocihi baa la yiraahdaa waxaan jecelahay insha Allah taala in sidaas oo kaleeto dariiqyo fara badan in lagu samaysto dariiqan xagga dhaqaalaha wuu ka yar yahay waxa ku baxaya dariiqyada waxa ku baxay haddaynu fiirino مثلا hadda waxa socda Muqdisho waxa ka socda Muqdisho Afgooye Jowhar 120 kilomitir baa la dhisayaa 120 kilomitir halkii kilomitir waxa lagu dhisayaa $1 milyan garowdan aad joogtaaniin shirkad Turkiya baa dhisaysa dariiqyada dhexdeeda ah halkii kilomitir 270 bay ku qaaday dariiqa kan waxaan u qiyaasnay in uu halkii kilomitir ku kaco $160,000 marka waxa weeye leanna waxa weeye dariiqan wuxuu kaga duwan yahay dariiqyada kale dariiq faa'iido laga doonayo ma aha waa dariiq kaliya expenses la bixinayo haddii aan fiirino adduunyada dariiqyadu intay ka joogaan Arabia oo kaleeto dariiqu halkii kilomitir waa $500,000 meesha la yiraahdo Bangladesh waxa way halkii kilomitir 2.5 million to 11.9 million waa halkii kilomitir oo muxuu ahaa dariiq oo la dhisaayo leanna waxa weeye Bangladesh ciidda ama dhagaxa ma ay haysato Cumaan baa loo qaadaa maraakiib baa qaada isla mar ahaanta waddanku waxa weeye waddan kulligiis wada biyo ah oo ciiddiisu ay tahay ciid blanket soil baa la lahaa waa ciid wax lagu beeran karo kaliya laakiin ciid wax lagu dhisi karo ma aha mashruucan aniga uu iga horeeyay bilowgiisii wuxuu balowday 2015 bishii May fundraising baa la waday ilaa iyo maxaan ku sheegay laga soo gaaray 2016 bishii October 1 baa la balaabay oo site-ka la tagay intaan site-ka la tagin waxaan sameynay design baan sameynay oo dariiqii survey lagu sameeyay design baa lagu sameeyay international standard baa lagu sameeyay BOQ baa loo sameeyay waxaan maxaan ku sheegaa dad banaanka ah ayaa yimid iyaga sameeyay dabadeedna waxaan u baahanay in review lagu sameeyo wixii ay noo sameeyeen si aan u ogaano waxay noo sameeyeen inay sax tahay waxaan la kaashanay nin khabiir ah oo Soomaaliya oo surveyor ah oo Saudi Arabia 40 sano ka shaqeynayay asaga baan keenay 2 bilood buu wuxuu ku sameeyay reviewgii marka uu sameeyay comments buu bixiyay commentskii baa
waxaan u diray qoladii aanu siinay contractigii horeeto dabadeedna way soo noqdeen way saxeen yani waxyaabaha aanu ka saxnay waxaa ka mid ahaa in dariiqa speed limitkiisa ay ku design gareeyeen 80 kilomitir saacaddii annagana waxaan ka dhignay 100 baan ka dhignay sababtoo waxa dadka Soomaalidu aad bay maxaan ku sheegay baabuurta u wadaan oo u dheereeyay marka waxaa ka iman lahaa accident fara badan baa ka iman lahaa haddaan halkaa ka gudbo survey waxaan soo qaadanay equipments iyo lab equipments oo bannaanka aan ka keennay sidii standardka ahayd oo muxuu ahaa alaabta marka la soo gato oo shirkad laga soo gato baanu samaynay calibration baanu dalbanay kambaniyaashii baa noo yimi calibrationkii bay noo sameeyeen surveygii iyo muxuu ahaa lab equipment labadiiba calibration baan ku samaynay shaqadiina halkaasaan ka balownay markii shaqada aanu balownay runtii caqabado fara badan baa naga hor yimi oo markii horeeto haddii dadku muxuu ahaa gaar ahaan guddigu aysan khibrad u lahayn in kaam la helo shaqaalihii kaam loo helo in workshops la helo in store la helo in maxaan kuu sheegaa logistics la helo leanna waxa way dadkii cuntay u baahan yihiin biyay u baahan yihiin maxaan kuu sheegaa shidaal bay u baahan yihiin waxaasoo dhan marka learning curve baan galay October ilaa iyo December dadkii laftigoodii dadka Soomaalidu uma ahayn dad u tababaran sida rasmiga ah oo 8 saacadood heavy duty in lagu jiro ma aysan ahayn markaa waxay noqotay inaan tababar training siino dadkii laftigoodii ay isbartaaniin qof kasta positionkiisa inuu shaqadiisii inuu ogaado sida saacadaha laga rabo waqtiga laga rabo sida maxaan ku shaqada loo fulinayo taas waxay naga qaatay taqriiban 3 bilood bay naga qaatay markii aan balownay shaqadii waxaa naga hor yimi caqabadaha waxa ugu waaweynaa annaga horta waxaan ka shaqeynay waxay ahaayeen ciid iyo biyaan isku dareynay ciidda iyo biyaan isku dareyno waxa weeye sida la isugu daraayo waa la tisgareynaya laftigooda laakiin biyihii مثلا ceelashii naga fogaaday ciiddii mararka qaarkood aad bay nooga fogaatay waxaa dhacday mararka qaarkood inaan biyihii 60 kilomitir ka keenno muxuu ahaa ciiddii sidoo kaleeto 40 kilomitir inay naga fogaato oo ciiddii maxaan kuu sheegaa مثلا markii dariiqa dhinaciisa joogtid 30 lood buu baawar ku keenay laakiin markan wuxuu ku keenayaa 4 ama 3 lood runtii waxa weeye taas waxay ahayd caqabad weyn caqabada kale oo muxuu ahaa la qabsatay waxay ahayd know how baabuurta aan la nimi ama macidaadka aan la nimi macidaad casri ah ahaayeen waxaana la sameeyay 1990 wixii ka dambeeyay 1990 wixii ka dambeeyayna Soomaaliya burbur bay ahayd lama keeninba wax yaqaan haddii ay naga halaabaan ayaanu weyn waxa xamar baan dad u dirsanay waa keenay dadkii laftigooda dad yaqaan ma noqon mar baan waxaan fadhiinay 3 bilood oo waxay naga fadhiyay macidaadka naga fadhiyay maxaa jira waddanka ma lahayn markii dambe waxay noqotay khasab in aan UAE ka keeno dad yaqaan electrical iyo mechanical yaqaan shaqada inaan keeno mushkiladda kale oo na qabsatay waxa weeye logistics weeye oo maxay tahay spare parts markaan u baahano magaaladii boosas kama helayno waa in imaaraadka loo diraa imaaraadkii air freight inay noqoto waxa laga yaabaa inay 2 isbuuc ama 3 isbuuc ay qaato air freight inay ku timaado mararka qaarkood waxaa dhacday in parts culaysa oo aysan qaadi karin diyaaradii in doon la soo saaro 2 bilood la soo socoto marka taasina caqabad weyn oo na qabsatay bay ahayd waxa kale oo jidhay anigu markii aan shaqada la balaabay nimankan waxaan u haystay in shaqada budgetkeeda inay hayaaneen markii aan meesha tagay waxaan ogaaday inaysan nimanka waxba jeebka ugu jirin in ay hand to mouth inay ku shaqeynayaan baan ogaaday leanna waxa weeye mashaariicdan ka shaqeyn jirnay budgetkii oo kaamil ah ama dawlad ha hayso ama se company private ha hayo loo lacagtii loo hayo yaa mashruuc la balaabi jiray markaasaa haddana site-ka qolada joogtaa kaash kalooga dalban jireen oo waxay u baahan yihiin 3 bilood intay u baahan yihiin yay soo qadimi jireen markaa ka bacdi loo wareejin jiray shaqadii saas ku socon jiray
laakiin meeshan waxay ahayd waxay noqotay in la ururiyo lacagtii loo baahnaa bisha oo bishii markay dhammaato mararka qaarkood lacagtii la waayo markii lacagtii la waayo dadka qaarkiis oo muxuu ahaa ka mid ah guddiga ayaa guryahooda rahamin jiray si aysan shaqaalahaas shaqaynaya aysan u waayin muxuu ahaa salarigoodii ma faham marka run ahaantii guddigu aad bay u dadaaleen yani labadaas sano iyo barkaas ku dhowaadkaas waxaa weeye hal bil oo shaqaalaha lacagtoodii ay 5 maalmood ka dib dhacday ma aysan jirin aad bay ugu mahadsan yihiin aad bay ugu dadaaleen dariiqa markaan design garaynay waxaanu ka dhignay 2 phase 1 wuxuu ahaa ceel daahir balan phase 2na balan ceel gaabo markaan baran gaarnay oo phase 2gii aanu muxuu ahaa phase 1kii aanu gaarnay caratuurkiisii yaa waxaa dhacday in aan weynay lacagtii aan phase 2ga ku balaabi lahayn markaasaan waxaan goosannay in aanu gaarno hadaartimo aan hore u sii soconno hadaartimo baanu gaarnay bishii January aan balownay bishii May baan waxaan gaarnay hadaartimo markaan hadaartimo bisha ilaa 5 bilood ka soo shaqaynay ayaa haddana waxa aanu ka sii shaqaynaynay rakibaadii warshadii asfaltiga iyo warshadii jayga ama se muxuu ahaa waxa tiraahanayn dhagaxa waxaa dhacday marka warshadda waxaan ka samaynay meel waadiga iyo dariiqa dhexdiisa ah dhagaxa la jabinayo 2 nooc weeye inuu noqdo dhagax buur laga soo jijibiyey oo mucidaad waaweyn lagu jijibiyey ama se la qarxiyey ama se dhagax kaleeto oo deexda ah oo dhagax loo yaqaano qoomluudka in la soo ururiyo labaduba waxay u baahan yihiin equipments lagu soo qaado lagu ururiyo lagu soo qaado dadna lagu keeno muxuu ahaa stockii oo ama se meeshii kaydka ahayd faratooyadu ay ooleyn shaqadaasaan balownay waxaan balownay bishii 5aad baan balownay ilaa bishii August kayd fiican baanu dhignay markaan aragnay inaan kayd fiican dhignay ayaan dib isugu noqonnay waxaan niri aan shaqaalaha 70% dhino kaydkanna aynu warshadda ku shaqaysiino laanna labadii warshadood way noo shaqeeyeen waana diyaar garaynay marka bishii August ilaa iyo bishii August ilaa iyo bishan muxuu ahaa October November waxaan sameeynay aggregate waan sameeynay oo aggregate waa noo diyaar hadda in badan baa noo diyaar ilaa 18,000 oo tan baa hadda diyaar noo ah marxaladda kaleeto oo hadda nagu soo socota runtii waa 5 marxaladood weey marxalad waxa weeye dariiqa markii horeba waxaan ugu talagalnay hal leeyar oo final ah oo 15 senti ah oo caratuura inaan sameeyno kaas waa ku noqonaynaa oo sidii aan u shaqaynaynin baan uga shaqaynaynaa kan kaleeto waxa weeye asfaltigii oo asagana markaa la balaabayo asfaltiga intaan la balaabin waxaa ka horeeya drainage oo muxuu ahaa turbine iyo Irish crossing ama se bundajiifyaal Irish crossing-ka waxa weeye waxaan ka dhignay 80 bundajiifyaashana waxa weeye 60 weeye marka shaqadaasna waa shaqo labaad shaqo saddexaad weeye shaqada afraad oo maxaan ku sheegaa weyn waxa weeye iyaduna slope protection baa la yiraahdaa laakiin taas gadaal baa loo dhigayaa oo hadda ma laga shaqeynayo waxyaabo waxa la yiraahdaa added value dariiq kaliya iskama aha laakiin waxyaabo kaleeto oo laga faa'iideystay ama laga faa'iideysan doono baa jira waxaa jira 14 engineer oo Soomaali ah ayaan training siinay qaarna weli laga joogaanay qaarna ay muxuu ahaa training 8 bilood markay qaateen ay muxuu ahaa magaalada galeen oo shirkado u shaqeeyaan waa valid aali waxa kaleeto aan ilaalinay environment-ga ilaalinay oo waxa weeye wadanku waxa weeye dooxooyin buu badan yahay dooxooyinka marka haddii dhexda lagu dhifto waxa weeye waxa weeye way kala saalmayaan oo مثلا haddii hadda dariiqa boosaas garow aad fiirisid dhinac dariiqii kor baa loo qaaday dhinaca galbeedka ah dhir buu leeyahay
dhinaca muxuu ahaa barigana dhir ma lahan teeda kaleeto markii kor loo qaado dariiqa waxaa muxuu ahaa dhacaysa in biyaha ka imanaya galbeedka markii ay muddo ku xayirnaadaaniin dhankaas inay dariiqii jilcinayaan oo dariiq uu jilcayo oo markaa muxuu ahaa jabi karo oo sida hadda dhacdayba oo maxaan kuu sheegaa roobabkii ay u galeen annaga waxa taa waa ka duwannahay dariiqa waa gaabinay meelaha ciidda ah oo muxuu ahaa dhoobada ah waxaan hoos u dhacnay ilaa 60 senti baan hoos u degnay ciiddii baan qaadnay ciid kaleeto oo cusub baan ku ridnay levelkii markaan nimi baan haddana design levelkii kor ugu qaadnay marka taasina waxa weeye environmentiga hadda maandhood baan soo maray maasha allah yani waxa weeye dooxooyinka kulligood maanta waa wada cagaar baabuurta ay waagii hore toogtay ninkii yaqaan baa yaqaanaa muxuu ahaa barar iyo jidkaa yaqaan oo muxuu ahaa baabuurta ay si xun u geli jirtay maaragtay dooxooyinka marka taasina waxa weeye baadid aaliyo bay ahayd waxaa kaleeto oo jira warshadaha aan rakibnay laba warshadood weeye mid waxa weeye asphalt midna waxa weeye jayway labadaba waxaan ilaalinay inaan ciidi ka kicin si aysan maxaan kuu sheegaa environmentiga aysan wax u yeelin oo system lagu xiro oo biyo maxaan kuu sheegaa qubaarkii uu qabanayo baan oo leeyihiin dadka qaarna waa isticmaalaan qaarna ma isticmaalaan tii baan anagu isticmaalnay oo waxaan ka joojinay qubaarkii dooxooyinka iyo beeraha awdi lahaa waan ka joojinay intaa marka dariiqa saas uga baxo recommendation baan ka bixinayaa dariiqa Boosaaso Garowe asalkeeda waxa weeye dariiqyada caalamka waxa weeye cumriga wax kasta cumri bay leeyihiin laakiin asfaltigu cumri buu leeyahay cumrigiisu waxa weeye 20 sano ilaa 30 sano marka saas ay gaadho oo cumrigaas uu gaaro oo uu balaabmo in uu jajabo lama ka kabo overhauling baa lagu sameeyaa waa la qaadaa leena waxa weeye dariiqii uu ku sameeyay yahay ciidii hoos bay ku taala waa ku contacted way waa ku fiican tahay waa la qaadaya waxa la qaadaya asfaltiga oo dhan baa la qaadaya asfalt cusub baa la saaraya laakiin haddii la yiraahdo hal ka kabo mar kasta waxa weeye uu sii halaabaya aakhirkana waxa weeye ciidii hoos ku oolay baa kaasi halaabay soo disaster weyn baa halka ka imanaya intaas baan kaga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu